habeen kale oo laysu ballamiyey canaasiirtii iyo weliba askartii habeen garba siman lagu kala carraabay generaalka iyo guutooyinkii uu hogaaminayey oo qalcaddoodii Metropolitano hal dhibic ku xoogsaday halka martiduna garba siman sidoo kale ay hal dhibic ku carrawday barbaro ayay ku soo dhammaatay ciyaartii rikoodhayaashu kulan aad u adag ciwaankeedu waa taxaddar iyo khalad iska ilaalin in ka badan dhiiranaan iyo weerar badnaan ciyaartu sidii la filayey ayay u dhacday waayo labada kooxood hamigooda koowaad waa difaacasho iyo guuldarro la iska ilaaliyo taasina waa mid u janjeedhay dhanka Arsenal maadaama garoonkooda lagu dambeeyo waxay muujiyeen samir iyo deganaan badan oo ay ku dhaweysay inay guulaystaan haddii loo dhigi lahaa rikoodhii haafkii dambe dhanka kale Atlantico waxa ka muuqatay inaanay nafis ku ahayn qaab ciyaareedka caawa oo ku khasbay inay si joogto ah u ordaan weerar iyo difaacashaba waana midda keentay dhaawaca Alvarez iyo in Diego Simeone aanu soo gelin Charlotte waayo Diego Simeone kamuu maarmayn orodka ciyaartan mana xamili karayn in hal ciyaaryahan aanu soo noqon natiijadani waa mid u janjeedha laakiin Arsenal wax kasta ka filo xilli Atlantico iyaduna xilli ciyaareedkan balagta keliya ay rajada ka leedahay ay tan tahay sidaasi way tahay la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulayso xaalku markuu halkan joogo Arsenal qalcadeedii Imaaraati ee madfuuc hor yaallay ayaa lagu ballansan yahay toddobaadka dambe kulanka markaynu si gaar ah isu dul taagno 906 baas oo labada kooxood ay sameeyeen waxa ka hirgalay 843 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhammaaday taakalladu iyadana waa lagu kala badnaa oo jabhadu way ku caanamaashay 21 bay ahayd halka ay 8 ka ahayd Gunners faawaladu waa 7 kooxda Atlantica iyo 11 kooxda Arsenal habeenkan cunaqabatayn baa laga saaray Arsenal koona quutayaal maadaama ay ahaayeen jabhadu taas way ka dagaalantay 6 ayay heshay kooxda Atlantico halka ay Arsenal ka heshay hal koorno kaliya xidigaha si gaar ah markaynu isu dul taagno 49 game buu ciyaaray 22 gool buu dhaliyay 9 buu caawiyay waa Julian Alvarez waa wiilkan reer Tango ee beera falatada ahaan jiray yaan badana caanka ku ah 50 game oo la ciyaaray 20 gool baa la dhaliyay 2 waa la caawiyay waana Victor Gyökeres fahamta calay shay kullu kalaam haliyeyga wax goosan kara habeenadan oo kale ayaa la garan karaa balse madfaca waxay ahayd mid habeenkan isugu fadhiday intii hore laakiin may mahadin kadib markii canaasiirtu ay hubkeeda noocyadiisa adag ay u isticmaashay gacmahana Arsenal u saartay ma ahayn inaad garsoorka isku hadlayso balse wax kastaba waa inaad xaqiiqada aad ahaataa midka ka midha dhalinaya garsoorka laga diiday rikoodhe loo qaban waayey xaalku ma aha inaad taa ku tala gasho waa inuu hamigaaga koowaad noqdaa guulaystaha iyo midka shabaqa booqda kulankan oo kala gaaladu waxay ugu yeedhaa mad movies sababtoo maxaa yeelay sida taxaddarka iyo sida weliba waalida ah ee kulanka la isu gumaaday la iskagana adeegay Julian Alvarez 41 game uu ciyaaray 25 gool ayuu siiyey kooxdan halka Lionel Messi 42 game uu ciyaaray uu 25 ku siiyey Barcelona waana xidigii labaad ee reer Argentina ama Tango oo sidan ka sameynaya koox reer Spain iyo tartamada Yurub habeenada ka mudna habeenada ka tilmaana waxa uu ahaaday mid ay garba siman ku kala baxeen jabhadii iyo waliba askartii oo markaasi yiri inagoo wada siman aynu kala baxno habeenada kala ka mudna level in Madrid loogu magac daray mad movies loogu yeeray kulankii kulamada ka midna balse Arsenal ay ahayd kooxda hankeedu uu hanasho xilli ciyaareedkan yahay inay halganka u ahaado mid midha dhala higsigooduna u ahaado mid ay hamuunta ku dhammaystiraan la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulayso marka xaalku halkan joogo hase yeeshee toddobaadka dambe burya biya ayaa loo kala bixi doonaa dhinaca kale midya labaan ku sii daray Al Nassr iyo Al Ahli habeenkan way wada kulmeen kadib kulan xiisa badnaa oo Real-ka Sacuudiga Ronaldo waa ku shumay Koeman baa ka labaad raacsaday 2-2 bay ku tumeen halka kooxda Al Nassr 20kii kulan ee ugu dambeeyay unbeaten bay tahay waa kuwa wada badiyay winkana ahaa sidoo kalena horyaalka 79 dhibcood ku haya halka Al Hilal 17 dhibcood leedahay hal kulanna baaqi u yahay waa kariskiya kala aadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike
midda xigta intaynu ku kulmi doonno inta ka horraysa yaan lagu karsane wax karso sida ayaa maana allah